galab wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab jimcaha 11 bisha Sebtembar sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA Somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo mar kale aan ku eegayna siyaasadda Soomaaliya iyo shirka lagu wada inay Muqdisho ku yeeshaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba kuwa maamul goboleedyada. sidaan ugu yeeli lahay haddaan ayaga ka mid ah waxaa loo noqon lahay heshiiska dhuusamareeb heshiis ay iskugu yimaadeen oo iyaga kulligood ka wada hadleen oo ahay markii labaad oo ayaga la waayay waxay noqotay intii isu timid inay go'aan gaarto. dabcan horta hadda halkan waxaa asal ah nooca doorashada ee la qaadanayo waxaa ka horeyso waqtiga aan rabno inaan doorasho galno ayaa asal ah aasaas ah natiijada aan ka filayno maatii dhuusamareeb mise tu kale waxaa xadidaya mar walba waqtiga haray ayaa xadidaya. waxaa kaloo dhegaysan doontaan qarax ismiidaamina oo ka dhacay magaalada Kismaayo oo dad ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. soo kale waxaad maqli doontaan taariikhda marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump oo qayb ka mid ah warbixino aan maalmahan ku eegaynay doorashada Mareykanka iyo musharaxiinta u taagan. barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Caashi Ibraahim Aadan. dowladda Mareykanka ayaa Khamiistii cunaqabatayn saartay 4 howlwadeen oo xiriir la leh Ruushka iyadoo ku eedeysay in ay isku dayayaan inay farageliyaan doorashada madaxweynaha Mareykanka ee soo socota. saraakiisha cunaqabataynta la saaray ayaa waxaa ka mid ah Andriy Derkach oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Ukraine oo ku xiran sirdoonka Ruushka iyo 3 kale oo ka howlgala Ruushka oo ku xiran hay'adda cilmi baarista internetka ee ku taala magaalada Pittsburgh. cunaqabatayntan ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo qaar ka mid ah saraakiishiisa ugu sarreysa sirdoonka ay ku adkaysteen inay yihiin wakiilada Shiinaha ee aanay ahayn Ruushka halista ugu weyn ee codbixinta dhacaysa November 3. dhinaca kalena ciidamada Ruushka ayaa si isa soo taraysa u wajahaya diidmada dadka deegaanka ee waqooyi bari dalka Syria iyagoo isku dayaya in ay ballaariyaan joogitaankooda military ee qaybta ay xasaradu ka taagan tahay siday sheegayaan ila wareedyo iyo khubaro. toddobaadkii hore ayaa kolonyo military oo Ruush ah waxa ay tageen tuulo u dhow xadka Syria ee la wadaagta Turkiga halkaas oo sida la sheegay saraakiisha Ruushka ay muujiyeen rabitaankooda ah inay fariisin military ka samaystaan aagaasi. qiyaastii 12 gawaarida gaashaaman ee Ruushka ayaa yimid deegaankeena Jimcihii la soo dhaafay ayuu yiri Cusmaan Khaliil oo ah hogaamiye maxalli ah oo ku nool tuulada la yiraahdo Sarmaseekh ee waqooyi bari Syria. in ka badan 200 oo qof oo degan tuuladeena iyo mid ku dhow ayaa si dhaqso leh isugu soo ururay una jihaystay halka ay ku sugnaayeen Ruushka ayuu yiri. isagoo khadka taleefanka kula hadlayay VOA-da ayuu Khaliil waxa uu yiri taliya Ruusha ayaa noo sheegay in ay doonayaan inay saldhig ka dhistaan tuulada si ay noo ilaaliyaan. waxaanan si fudud ugu sheegnay inaanan rabin ilaalintooda islamarkaana aanan aaminaynin Ruushka. dhinacyada isku haya dalka Afghanistan ayaa ku dhawaaqay in ay maalinta Sabtida ah ee soo socota magaalada Dooxa ee dalka Qatar ka bilaabaan wadahadalkooda nabadeed ee tooska ah si ay uga wada xaajoodaan heshiis siyaasadeed oo lagu xalinayo khilaafka muddada dheer ka taagan wadanka. wadahadalada taariikhiga ah ee uu garwadeenka ka yahay Mareykanka ayaa waxaa si rasmi ah loogu yaqaan wada xaajoodka u dhaxeeya Afghanistan. koox ay magacowday dowladda Afghanistan oo ka kooban kooxda wada xaajoodka iyo gorgortamayaasha ka socda fallaagada kacdoonka wada ee Taliban ayaa fariisan doona miiska wada hadalka ee magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar. labada dhinac ayaa Khamiistii ku dhawaaqay kulanka. magaalada Washington ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu bogaadiyay horumarka laga sameeyay hanaanka geedi socodka nabadeynta Afghanistan taasoo ah natiijada ka soo baxday sida hadalka loo dhigay dadaalka diblomaasiyadeed ee geesinimada leh ee maamulkiisa si gacan uga geysto soo afjarida ku dhawaad dagaalka 20 sano ka socda wadanka ku yaala koonfurta Aasiya.
waxaan si sharaf leh ugu dhawaaqi karaa in xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo uu caawa u ambabixi doono safar taariikhi ah oo uu ku tagayo Dooxa bilowga wadahadallada nabadda ee u dhexeeya Afghanistan. Trump ayaa hadalkaasi u sheegay saxafiyiinta. wadahadalladan ayaa waxay yimaadeen heshiis bishii February ay Washington kula yeelatay Taliban magaalada Dooxa si ciidamada Mareykanka looga saaro Afghanistan iyo in la soo afjaro waxa noqday dagaalkii ugu dheeraa ee Mareykanka kaas oo galaaftay nolosha in ka badan 2400 oo askar Mareykana. Shiinaha iyo Hindiya ayaa sheegay Jimcahan inay ku heshiiyeen in la dejiyo xiisada ka soo cusboonaatay xadka ay ku muransan yihiin ee Himalaya ayna qaadaan tallaabooyin lagu soo celinayo sida hadalka loo dhigay nabadda iyo xasiloonida kadib kulan diblomaasiyadeed oo heer sare ah oo ka dhacay magaalada Moscow. wakiilka xukuumadda Shiinaha Wang Yi iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Hindiya Jair Shankar ayaa Khamiistii waxay ku kulmeen magaalada Moscow waxaana ay gaareen heshiis 5 qodob ka kooban oo ay ka mid yihiin heshiisyo ah in ciidamada labada dhinac ay si dhaqso leh u kala baxaan una qaboojiyaan xiisadda sida lagu sheegay bayaan ay si wadajir ah u soo saareen labada wadan. waxyaabaha la isku afgartay ayaa lagu weeraray shir midkaasi dhinac socday oo ay lahayd hay-adda iskaashiga Shanghai kaasoo yimid kadib iska horimaad ka dhacay aagga xadka ee galbeedka Hindiya horaantii toddobaadkan. labada wasiir arrimo dibadeed ayaa waxa ay isla garteen xaaladda haatan ka taagan deegaanada xuduudda inaysan dan ugu jirin labada dhinac midkoodna. waxa ay sidaasi darteed ku heshiiyeen in ciidamada xuduudaha ee labada dhinac ay sii wadaan wadahadaladooda, in si dhaqso leh ay u kala baxaan, ay sii wadaan masaafada saxda ah iyo inay yareeyaan xiisadaha ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay labada dhinac. Shiinaha iyo Hindiya ayaa midba kan kale ku eedeeyay inuu rasaas hawada u riday intii uu socday iska horimaadka taas oo xadgudub ku ah brotokoolka muddada dheer soo jiray ee ahaa in aan hub loo adeegsan soohdinta xasaasiga ah. aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan oo warkii dunidayna la socotiinaysa. aan ku bilownay wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in 2 qof ay ku dhinteen 6 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin oo maanta ka dhacay meel ku dhow masaajid qadiimi oo ku yaala magaaladaasi Kismaayo. wararku waxay intaasi ku darayaan in qofka weerarka geystay uu bartilmaameedkiisu ahaa gudoomiyihii rugta ganacsiga ee Jubbaland Shaafir Rabbi Kahin oo Allah u naxariistay la sheegay inuu markii dambe dhaawac soo gaaray u geeriyooday. wariyaha VOAda Khadar Maxamuud Xareed ayaa faahfaahinta warkan nooga soo diray magaalada Nairobi. ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey 3 qof oo uu ka mid yahay qofkii isqarxiyey ayaa ku geeriyooday, ku dhowaad 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta wax yar uun ka hor salaadii Jimcaha uu weerar ismidaamin ah uu ka dhacay meel u dhow masaajidka Jaamacul Qadiim ee magaalada Kismaayo. qaraxa ayaa waxaa bartilmaameedkiisu u ahaa gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland Shaafir Rabbi Kahin kaasoo goor dambe oo maanta ah magaalada Kismaayo ugu geeriyooday dhaawac culus oo ka soo gaaray qaraxa ismidaaminta ah. goobta uu qaraxa ka dhacay oo ah bartamaha magaalada Kismaayo isla markaana ay ku yaalaan xarumaha dawladda hoose ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa firirka ka dhashay qaraxa uu sababay inay dad badan ku dhaawacmaan. dadka dhaawacmay waxaa u badan caruur ka agdhoweyd goobta uu qaraxa ka dhacay. xilligii qaraxa uu dhacayay ayaa ahaa xilli dadka magaaladu ay u diyaar garoobayeen tukashada salaada Jimcaha. taliyaha ciidamada booliska maamulka Jubbaland Maxamed Naasir Guuleed oo aan qaraxa kadib telefoonka magaalada Kismaayo aan kula xiriiray ayaa waxa uu iiga waramay sida ay wax u dhaceen. intaasi ka sokow taliyaha ciidamada booliska Jubbaland Maxamed Naasir Guuleed oo aan waraysigan kadib telefoonka magaalada Kismaayo aan kula xiriiray ayaa sidoo kale ii xaqiijiyey in gudoomiyihii rugta ganacsiga Jubbaland Shaafir Rabbi Kahin uu u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qaraxii maanta. maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaana sheegtay mas'uuliyadda weerarkii ismidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay magaalada Kismaayo. qaraxan ayaa imaanaya xilli bilihii lasoo dhaafay ay xasiloonayd magaalada Kismaayo. 7 bishii Julaay ee sanadkii hore ayay ahayd markii maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen hoteelka Madiina oo horey loo oran jiray hoteelka Cascasey, halkaasoo ay ku dileen ku dhowaad 26 qof oo ay ku jireen wariyayaal iyo aqoon-yahano Soomaaliyeed. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
melania trump marwada madaxweynaha maraykanka waxay ka mid ahayd gabdhaha waxaysiiya ka hor intaysan guursan Donald Trump 15 sannadood muddo haatan laga joogo. Waxay sidoo kale ahayd qof ka soo haajirtay dalka Slovenia. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo haysa. Soo istaag Melania, halkan imow. marwada koowaad Melania Trump mar walba waa mid dhisan si aad u wanaagsan u labisata. waa soo galooti ku barbaartay Slovenia, waana jamhuuriyad ay ku nool yihiin 2 milyan oo qof. sidoo kalena waxaa weli ku nool saaxiibadeedii caruurnimada. Mirjana Jelansis waa saaxiib xilligii ciyaalnimada ay lahayd Melania Trump. She was very positive. She liked reading books. She also liked designing. waxay ahayd qof dhanka wanaagsan mar walba wax ka arka. waxay jecleed akhrinta buugaagta. waxaa kale oo ay jecleed qaabeynta dharka, ayadoo dharka duugoobayna ka soo saari jirtay dhar cusub. jacaylka dharka ayaa u hogaamiyey shaqadeedii ugu horeysay ee dhar xayeysiinta, taasoo dhabtiina keentay Mareykanka. Michelle Tauber oo ka tirsan wargeyska People ayaa tiri, She's the first immigrant to be first lady since Louisa, who was the wife of John Quincy Adams. waa soo galootigii ugu horeeyay ee noqoto marwada koobaad tan iyo wixii ka dambeeyay Louisa oo ahayd xaaska madaxweynihii hore John Quincy Adams qarnigii 19aad. Melania iyo Donald oo 24 sano ka weyn waxay ku kulmeen xaflad, waxaana ay isguursadeen 2005. waxaana sanadkii ku xigayba u dhashay wiilkooda Barron Trump, waana wiilka ugu yar wiilashii madaxweynayaashii dalkan soo maray tan iyo John F. Kennedy sanadkii 1963. She's an incredible mother. waa hooyo aan la heli karin oo cajiiba. aad bay wiilkeeda Barron u jeceshahay. Melania Trump oo ka waramaysa wiilkeeda iyo sida ay doonayso inuu noloshiisa xor ugu noqdo waxa ay tiri, He's enjoying his school and his sports. He's a great athlete and I just want to have him. waxaan ku raaxaystaa iskoolkiisa iyo ciyaarihiisa. waa ciyaaryahan weyn. waxaan doonayaa inaan dibadda uga hayo oo aan ka ilaaliyo dareenka dadka in lagu soo jeediyo hadda. Melania lafteeda waa ay ka xishootaa indhaha dadka marka laga reebo meelaha qaar oo ay kaga qayb gasho waxyaabo iyada u gaar ah. barnaamijkeeda Be Best ama noqon kan ugu wanaagsan waxa uu dhiirigeliyaa mustaqbalka ilmaha. bishii July waxa ay qada ka qaybisay goob hooyooyinka kaligood ah oo aan aabayaashu ku jirin ay ku nool yihiin. Be Best waxa kale oo uu la dagaalamayaa faquuqa iyo aflagaadada baraha bulshada. Today's technology provides people with a digital shield to hide behind. Teknolojiyadda maanta waxa ay dadka siisaa gaashaan ay gadaal ka maraan oo aanan lagu aqoonsan. waxayna ka fogeysaa barahaasi inay noqdaan meel la isku xanaaneeyo, mas'uuliyadna lagu muujiyo, taasi oo u horseedi lahayd carruurta iyo dadka waaweynba inay awood dareemaan isla markaasina ay naxariistaan xilliyada adag ee cadaawadda. si furan ugama aysan hadal fariimaha Twitter-ka uu soo dhigay ninkeeda, kuwaasoo mararka qaar uu ku caayo dadka ka soo horjeeda markii uu ku kajamayay gabar yar oo u dooda cimilada oo lagu magacaabo Greta Thunberg. xafiiskeeda Melania Trump wuxuu soo saaray qoraal lagu yiri, ma ahan arrin sir ah in madaxweynaha iyo marwada koobaad ay badanaa siyaabo kala duwan u hadlaan ama wax u yiraahdaan si la mid ah lamaanayaasha isqaba ee dunida. mararka qaar iyada ayaa la bartilmaameedsaday markii uu madaxweyne Trump ku guuleystay doorashada. dhanka kalena Sloveniyaanka ayaa u dhisay taalo lagu maamuusayo iyadoo ku labisan dharkii ay xirnayd maalintii caleemasaarka madaxweyne Trump. balse 4 July ee sanadkan maalintii xorriyadda Mareykanka dad ayaa dab qabadsiiyay taaladaasi, waana laga qaaday goobtii. Cookie Roberts oo ah siyaasad qeexe ayaa sheegtay bishii February 2 sanadkii 2017 sidan. It is a daunting task. It's easier for first ladies of states who have played a similar role in a state, but for someone who has never even been in government. waa hawl adag oo miisaan leh, sidoo kaleetana waa mid u fudud marwooyinka koobaad kuwaasi oo howlahan oo kale amaba kuwo u dhow horay u soo qabtay, balse qof aan weligiis howl dowladeedba qaban waa mid aad ugu adag. aynu duceysano.
melania trump waxay haysataa madhabda katoliga waana marwadii koowaad ee madhabtaasi haysata tan iyo Jacqueline Kennedy waana sidoo kale marwadii koowaad ee ugu horeysay ee ku hadasha 5 luuqadood. It is my honor and great pleasure to stand here before you as the first lady. Sharaf bay ii tahay iyo farxad weyn inaan hortiina soo istaago anigoo ah marwada koowaad ee Mareykanka. inkastoo ay 4 sano ee la soo dhaafay ay ka maqnayd kaamarooyinka hortooda inta badan haddana xeeldheerayaasha ayaa sheegaya in Melania Trump ay hadda hadli doonto oo banaanka imaanayso iyadoo olole ugu jirta in mar kale ay noqoto marwada koowaad ee Mareykanka. I'm so impressed by how thoughtful you have been with. aad baan ula yaabay sida aad uga fakarteen warbixinadiina. aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay. haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka uu magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste. jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno guud ahaan xaaladda siyaasadeed ee uu dalku ku sugan yahay iyo waxyaabaha laga filan karo inay ka soo baxaan shirka ay muqdisho ku yeelanayaan madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kadib heshiiskii dhuusamareeb 3 oo ay ka maqnaayeen hoggaanka maamulada Puntland iyo Jubbaland taasoo ragaadisay in heshiis wada ogol ah laga gaaro arrimaha doorashooyinka waxaana barnaamijka marti iigu ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaan Maryan Cariif Qaasim oo ka tirsan golaha shacabka senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ah xogayaha guddiga dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka iyo Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo xubin firfircoon ka ah ururada bulshada rayidka balse ka hor inta aynan barnaamijka u gudagelin aynu wada dhagaysanno warbixin la xiriirta umuurahaasi oo inoo soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar. Soomaaliya oo dhawaan galaysa doorasho waxaa weli taagan khilaafaad salka ku haya hanaanka loo wajahayo ee nooca ay doorashadu noqonayso. inkastoo shirkii ugu dambeeyay ee dhuusamareeb madaxweynaha 3 maamul goboleed Hirshabeelle, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir ay heshiis ku gaareen nooc doorasho hase ahaatee Puntland iyo Jubbaland oo aan shirkaasi ka qaybgalin ay diideen taa oo keentay in mar kale madaxweyne Farmaajo uu shir kale ku casuumo dowlad goboleedyada iyadoo qorshuhu yahay in lagu dhammaystiro arrimaha doorashooyinka dalka oo ay weli tabasho ka qabaan qaar ka mid ah maamul goboleedyada. Shirka oo markii hore ujeedku ahaa in ay yeeshaan madaxtooyada iyo madaxda Puntland iyo Jubbaland toddobaadkii hore ayaa u baaqday shuruud ka timid dhanka Jubbaland oo la xiriirtay arrimaha gobolka Gado iyo in ciidamada ay dowladdu geysay laga saaro ka hor shirka iyo soo jeedin labada maamul ay ku dalbadeen in shirka aan loo dhigin mid iyagay madaxweynaha u dhaxeeya balse uu noqdo mid ay u dhan yihiin maamul goboleedyada si heshiis wada ogal ah loogu gaaro. Xildhibaan Maxamed Xasan Gani oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in arinta gobolka Gado ay muhiim tahay in xal loo helo si doorashada loogu heshiiyo. In hore loo socdo waxyaabahii la isku haystay laga gudbo lagana hadlo aragtida hadda ugu muhiimsan oo ah aragtida doorasho loo dhan yahay laguna wada qanacsan yahay in laga heshiiyo. Waxaa kow ka ah gobolka Gado oo shirar ka socdaan oo la leeyahay dowlad goboleed loo dhan yahay oo Jubbaland ay leedahay la soo dhisayaa. Marka sidaas ayaa marka waxay ila muuqataa in madaxweynaha Jubbaland iyo madaxda kaleetaba ay weli u fahansan yihiin madaxweyne Farmaajo inaanu serious ka ahayn dhabna ka ahayn waxa uu ka sheekaynaya in uu tanaasul sameeyo wada hadalna dadka la galo laakiin ay tahay ujeedadiisa jid aan ku jida oo gacmo daalis ah. Muqdisho waxaa ku sugan dhammaan madaxda maamul goboleedyada waxaana lagu wadaa in shirka uu si toos ah u bilowdo maalinta Sabtida ee soo socota kaasoo looga hadlayo hanaanka doorashada walow uu Khamiistii dib u dhacay.
beesha caalamka ayaa dadaal xoog leh ugu jirta sidii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay heshiis ugu gaari lahaayeen qabashada doorashada dalka. xildhibaan maxamed isaaq cusmaan fanax oo ka tirsan golaha shacabka ayaa rajo ka muujiyey wadahadalada labada dhinac. haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan ku rajo weynahay in shirkaas uu natiijo wanaagsan ka soo bixi doonto, maadaama shirkii ka horeeyey ee dhuusmareeba tiri qodobo muhiima laisla soo gaaray. insha allahu haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay in wax natiijo ah oo wanaagsan ka soo bixi doonaan ummadda soomaaliyeedna wanaag u horseedaya insha allah. shirka ayaa kusoo beegmaya iyadoo dalku uu ku jiro marxalad kala guur ah, islamarkaana ilaa iyo hadda lasoo magacaabin xukuumad rasmi ah kadib markii xilka laga qaaday ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre. korneel cabdirasaaq saciid xuseen oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray ayaa shaki geliyey heshiis lagu gaaro shirka mar haddii hay-addii fulin lahayd ay meesha ka maqan tahay, welina uu jiro khilaaf u dhaxeeya labada aqal ee baarlamaanka. dalkii xukuumad ma leh 50 cisho, kuwa hadda joogaana sharciyad uma leh. sababtu maxaa weeye yaa dalkii maamulaya? ma madaxweynaha awood u leh xukuumad la-aan inuu asagu shaqeeyo, mise maamul goboleedyadaa sharci u leh inay inta madaxweynihii u yimaadaan ayagu xukuumaddii matalaan? waana sharci darro waxay isugu yimaadeen. xukuumaddii ra-iisul wasaaraha xilka la weyday baa dhaqaalihii iyo siyaasadii iyo amnigii siinaysa oo baarlamaanku xasaanada ka qaaday. ma la aqbali karo waxa. ugu dambeyntii xildhibaan maxamed cumar dalxa ayaa v o a u sheegay in heshiis kasta oo lagu gaaro shirka ay lagama maarmaan tahay in la horkeeno golaha shacabka si loo waafajiyo shuruucdii uu horey u ansixiyey baarlamaanka. si kastaba ahaatee mas-uuliyadda saaran ayaa waajib ah inay gartaan mas-uuliyiintaasi oo ummadda soomaaliyeed ay u hayaan oo xilligan adag la doonayo waddankan inuu u baahan yahay badbaado oo aanan taagnayn xilli qofka kale inuu ugu muuqdo wax ka duwan maslaxadda caamka ah ee aanan qofba noqonin mid isaga qumanihiisa qoorta ugu jiro oo isla garleh, ayadoo tii caamka ahaydna inta laga tago tan khaaska ahayd tanasul la'aan iyo u damqasho la'aan dalkan iyo dadkan badbaadada u baahan in meesha aysan soo gelin waxa la rajaynayo. marka kulley annagu waa sugaynaa waxaa ka soo baxo natiijada, waxaana haddii ilaahay raalli ka noqdo kadib wixii ay isku waafaqaan aan filaynaa in la horkeeno golayaha dowladda oo marka isaga qaanuuniyan ee ah golaha shacabka. si kastoo ay tahay dad badan ayaa rajo ka qaba shirka iyo sidii xal siyaasadeed looga gaari lahaa doorashada dalka, halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin in ay adag tahay isfaham lagu gaaro shirka maadaama ay ka qaybgalayaan dhinacyadii ku midoobay qodobadii shirkii dhuusamareeb iyo kuwii ka horyimid, iyadoo dhanka kale ay su-aal ka taagan tahay muddada yar ee hartay waxa lagu qaban karo. Zaynab Abuukar Maxamed, v o a, Muqdisho. mahadsanid Zaynab. markana aan dib ugu laabto martida barnaamijka. shirka magaalada muqdisho ay ku yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe, maxaad isleedihiin waa looga hadlayaa? ma heshiis cusub ayaa la gelayaa mise qodobadii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb ayaa wax ka bedel lagu samaynayaa? aan ku bilaabo Maryan Cariif. aniga waxay ila tahay waa sidaan anugu yeeli lahay haddaan ayaga ka mid ah. waxaa loo noqon lahay heshiiska dhuusamareeb. heshiiska dhuusamareeb heshiis ay iskugu yimaadeen oo iyaga kulligood ka wada hadleen oo ahay, inkastoo kii ugu dambeysay ee labadan odayo jubbaland kala socda maxay aheeday garowe ay maqnaayeen, laakiin haddana waxay ahayd mabda ay ayagu bilaabeen oo lagu sameeyey geesinimo gelintooda, ayagu inay rabeen in lagu shiro, ayagu inay rabeen in lagu heshiiyo, ayagu inay rabeen inay ka soo baxdo dhuusamareeb go-aana ka soo baxaan. markii labaadoo ayaga la waayey waxay noqotay intii isu timid inay go-aana gaarto oo ay wax uun soo dhoodhoobto. waayahay halkaas markii la joogo marka
ma waxay leeyihiin axmed madoobe iyo delima waxay leeyihiin wixii shalay aan annaga idinla bilownay oo markaa idinka aad naga tagta aadna weydeen aad soo dhammaystirteen waxba kama jiraan miyay leeyihiin ma dhahayaan aniga aragtidayda waxay ila tahay saas waa ka soomaalisan yihiin waana ka sharaf badan yihiin waxay fiirinayaan wixii ka dhacay meesha la yidhaahdo magaalada dhuusamareeb wixii la soo saaray eegayaan waxaan anfacayninna waa sheegayaan oo waxay dhihi doonaan maxay qodobkaas iyo qodobkaas nama anfacaayo wixii anfacayana waa qaadan doonaan ilaa dhuusamareeb ayagaa aasaasay haye senator xuseen isla su-aashan bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay dhegaystayaasha v o eda iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan waan salaamaynaa dabcan horta hadda halkan waxaa asal ah nooca doorashada ee la qaadanayo waxaa ka horaysa wakhtiga aan rabno inaan doorasho galno ayaa asal ah aasaas ah haddaan ku xisaabtamayno wakhtiga inta ka dhiman oo dabcan hadda baarlamaanka hadda jiraahu 27 December ayaa la dhaariyey muddo 4 bilood ugu badnaan ah ayaa hadda mataqaana laga joogaa ayaa naga xigta markaas waxa natiijada aan ka filayno maatii dhuusamareeb mise tu kale waxaa xadidaya mar walba wakhtiga haray ayaa xadidaya haddii dabcan la yidhi doorasho qof iyo cod ah wakhti dheeray u baahan tahay oo mabaadi'dii dhuusamareeb 1 2 iyo 3 intaba ay ka soo baxday in doorashada wakhtigeeda lagu qabto haddii la raacayo waxa ay tahay tii dhuusamareeb nafteeda ayaa weli waxay noqonaysaa mid aan wakhtiga la jaanqaadi karin practically wakhtiga inta ka dhiman ayada nafteeda inaanay suurtagelaynin dabcan waxaa ku jira qodobo u baahan diyaargarow badan ayaa ku jira oo ay ka mid tahay xisbi in lagu galo hadda tusaale ahaan haddii la yidhaaha xisbi ayaa lagu galayaa maanta waxay u baahan kartaa muddo dheer ayay u baahan kartaa intii guddiga madax bannaan ee doorashooyinka ay soo jeediyeen ay ka codsadeen golaha shacabka ay yidhaahdeen wakhtigaasa u baahannahay in la eg inay u baahnaan karto ama ka badanba ayaan dareemaha haddii la yidhaha xisbiyaa lagu galaa marka si la mid ah qodobadii ka soo baxay meesha waxaa ku jira qodobo fulintoodu wakhti dheer u baahan yahay aniga marka fahamkayga waxa ay tahay bays waa looga dhigan karaa laakiin qodobo badan oo u baahan in mataqaana dib loo fiiriyo wakhtiga la jaan qaadaya ayaa ku jirta tusaale ahaan ergada markaan maanta dhinaahno xaalka wadanka uu ku jiro aan fiirino oo amni ahaan aan fiirino annagoo ka tusaale qaadanayna ergadii mataqaana 2016 wax soo dooratay iyo sida mataqaana loo dhibaateeyey oo qaarkood loo laayay u malayn maayo hadda inay 301 qof ay suurtagal tahay wakhtigan la joogo inay mataqaana doortaan laakiin un mataqaana wax ka fiican 2016 wakhtigan hadda lagu qaban karo inay soo saari karaan ay ila tahay shirwac bulshada rayidka ayaad matalaysaa maxaad isleedahay shirkan waa looga hadlayaa waxaa looga hadli doonaa doorashada sidii loo qaban lahaa ayaa looga hadli doonaa haddii wax kale ay ajadaha ku darsadaanna iyaga ayay ka go'daa marka ani waxaan isleeyahay shirkii dhuusamareeb 4 qodob maahayne kuwa kale waxay iska ahaayeen waxaan hadda dagaal maaragta ama muran uusan ka taagnin ayay ahaayeen waxa muranku ka taagan yahay waa 4 qodob waaye 4taas qodob in laga doodi doono ayay aniga ila tahay waana suurtagal de inay ka heshiiyaan 4taas qodob ama si cusub loo dhigo ama muxuu ahaa mataqaanaa kuwa kale oo la isla ogol yahay lagu bedelo marka xagga raja ka jirta maarata marka laga wada hadlayo shirkii hadda ma jirtaan u malaynayaa dood ah dhuusamareeb 3 daaqada dhan laga tuuro eber laga soo bilaabo yani doodaasi hadda ma taagnaan u malaynaya hadday taagan tahana de shirka wax laga sugaabo way adkaanaysaa markaas waa dada meesha ku gaar inta hadda wada hadlayda intii ugu badnayd baa meeshaas go'aanka ku gaartay marka ani waxaan isleeyahay waxyaabaha adkaan karaayo waxa weeyaan shirka muxuu ahay fulinta doorashada waqtiga doorashada la qabanayo qaabka lagu galayo ma axzaaba lagu galaya mise waxa lagu galaya muxuu ahaa mataqaana ergo beel ka timid baa lagu galayaa waxyaabaha oo aad loogu kala duwan yahay fikirkooda loogu kala duwan yahay waa taasa tirada iyo dhib malaha tiradu waana la kordhin karaa tay tahay waa la qaadan karaa wax waa laga dhimi karaa ma u malaynayo tiradu inay مثلا dhib keenayso ma u malaynayo waxa muhiimka ah waxa waaye in aysan heshiis la'aan kala tagin inay wax ku heshiiyaan waxaasna ay noqdaan waxay isla qaadi karaan oo isla fulin karaan waxa dhici karta siyaasiyiinta Soomaaliyeed iga raali ahaada waxa lagu yaqaanaa waxa waaye waxaan heshiis ahayn inay heshiis ka dhigaan moqti hadhoweytan nin walba meeshiisa uu ka cabiro waxyaabahan annaga haddaan bulshada nahay aan ka digaynahay waa taas waaye waxa weeyaan 4 sano dabayaaqadoodii baan hadda joognaa
saddex sano iyo 7 bilood wixii la qaban waaye hadda in la qabtaa la rabaa marka waa in dad ka duwan dadka aan naqaana ay yimaadaan oo muxuu ahay siyaasiyiina oo ummadooda uu muxuu ahay dhimrinaya marka waxaan isleeyahay wada hadalku ma fududaan doono laakiin marka dambe waxaa laga yaabaa in la gaaro wax oo dalka iyo dadka wadan u ah Maryan Cariif marka la eego heshiiska nooca doorasho ee lagu gaaray Dhuusamareeb ee ay 301 ergo wax soo dooranayaan ma ahan tii ay rabeen baarlamaanka Soomaaliya waayo baarlamaanku waxa uu doorbidayay inay doorashadu noqoto qof iyo cod arintaasi sidee baarlamaanka aad ka tirsan tahay u arkaan baarlamaanku danta wuxuu ka shaqeeyaa qaranka Soomaaliyeed laftirkiisa shaqada baarlamaanka oo aan ku jiro waxa waaye inay u daneeyaan maxaa u fiican Soomaaliya marka waxay isleeyihiin ay isdhaheen haddii hal iyo qof iyo cod la aado waxaan boobsiiska ahaa laga baxayaa laakiin warka baarlamaanku ay soo jeediyeen iyo go'aanka ay gaareen labadaba waqtigiisi kuma imaanin waxaa la rabay 2 sano ka hor ama sanad iyo bar ka hor ama ugu yaraan sanad ka hor arrintan miiska in la soo saaro oo aan ka shaqayno sida horta qof iyo cod loo aadi karo la qof iyo cod laftirkeeda waa nagu cusub tahay nidaam cusub waa shaqo badan iyo waxay rabtaa howl badan iyo xoolo badan iyo mataqaan dad badan ay u baahan tahay marka baarlamaanka aniga aragtidaydu waxa waaye arrintan ay soo jeediyeen ma noqon doonto arrin intay ku dhagaan ay dhihi doonaan gub iyo gash male maxaa yeelay dalka taladiisa baarlamaanka kaliya iska male baarlamaanka kale waxa iskale maxay aheeday aqalka sare iskale madaxda dalka oo kala nooc ah iskale dowlad goboleedyada wax kule madaxweynaha wax kule prime ministerka wax kule marka wax wadareed waaye shaqo wadareed aan isla qabanna inay tahay waaye baarlamaanku marka kuma khasbi karo inta kale sida annaga aan rabnaa la yeelayaho sanad ama 2 sano kale la sugayaa ma dhihi karo waa tahay ma dhici kartaa marka inay celiyaan sharciga hadiiba la horkeeno sharciga baarlamaanka haddii la horkeeno baarlamaanku siduu ku yeeli doono aniga waa joogaa maalintaasaan go'aan gaari doonaa haddii alla yidhaah mahadsanid Maryan Cariif aan siiyo senator Xuseen waa mahadsan tahay dabcan horta haddaad ula jeedo baarlamaanka federaalka labada aqal haddaad ula jeedo labada aqal la isku yidhaahdaa golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa la kala yidhaahdaa marka labada aqalba guud ahaan eed kuma leh inay mataqaanaa sharcigii doorashada sameeyeen inay yidhaahdaan qof iyo cod ayaa loo baahan yahay xukuumaddana waa ku guuldaraysatay laakiin muhiimadda waxa ay tahay maanta qof iyo cod qof walba oo Soomaali ah in wixii 20kii sano ee lasoo dhaafay lagu dhaqmay in laga guuro waa jecel yahay duruufo ayaana 20ka sano mataqaanaa dadka ku soo hayay in nooc kale oo aan qof iyo cod ahayn la sameeyo duruuftii ma laga baxay ma loo diyaar garoobay siyaasad ahaan amni ahaan bulsho ahaan dhinac walba ma loo diyaar garoobay aniga waxa ay la muuqataa dabcan diyaar garowgii wax ka dhiman yahay maanta oo doorashada ay bila ka dhiman yihiin xilli hadda lagu doodo doorasho qof iyo cod ma jirto baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqalna talada siyaasadana qayb uu ka yahay tii sharci dejintana waa soo guteen xukuumadii haday ku fashilantay oo golaha shacabku yiraahdeen mataqaana wataas darteed ay ku fashilantaan meesha uga saarnayna waa loo qaateen laakiin hadda maxaa soconaya ayaa loo jooga dabcan hal qodob oo aan soo suurtagelin ayaa ah in mataqaana la yiraahdo doorasho qof iyo cod aan rabnay sida darteed waqtigan ku darsanayna ma suurtagelayso horena uma suurtagelin waxaa loo baahan yahay maanta mid loo fadhiyo ah maxaa suuroobaya oo la qaban karaa waqtiga inta ka dhiman dabcan maybe inay bil iyo labo ay iska sii socoto laakiin maanta baarlamaanka Soomaaliya waxa la gudboon in talada ka soo baxda hogaamiyaasha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ka dhigaan mataqaana qaraar ku ansixiyaan si ay sharci u noqoto shirwac inkastoo weli heshiiskan aan baarlamaanka la horkeenin haddana siday kula tahay qaabka ay u arki karaan mar haddii ay baarlamaanku danaynayeen qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah horta baarlamaanku hawshiisa isaga gabay waxay ahayd xukuumadda inuu kula xisaabtamo marbay ahayd sanadkii koowaad haddii la dhaafay oo xukuumaddii cagadhigatay oo miisaaniyad samaysatay waxay ahayd in la yidhaahdo miisaaniyadda kusoo dara doorashadii taas waa baarlamaanka way seegtay waxaa kaloo seegtay markii xeerkii uu daahay isna oo sanadkii ugu dambeeyey uu yimid iyadana waxa weeyaan waa halkaas dhaliil baa ku jirta iyaduna tan kaloo saddexaad waxa weeyaan xeerkana way daahiyeen muddo dheer bay haysteen
marka iyadoo waxaasoo dadku ay maxaa indhaha qabsadeen hadday hadda yidhaahdaan haddana waan dheeraysanaynaa iyo waa dhib waaye arrinta oo ah hal cod iyo hal muxuu ahay cod iyo qof lama diyaarin baarlamaanku ma diyaarin xukuumaddu ma diyaarin dowladda oo dhammi ma aysan diyaarin shacabka qudhiisu waaci uma ahaynoo mar hore kuma qabsanin baarlamaanka inay dowladda maaragta kormeeraan oo yidhaahdaan sharcigii keena oo guud ahaan waa laga seexday marka doorashada hal qof hal cod hadda la leeyahay waxba kama duwana tii dadbanayd haddaad fiirido dhuusamareeb 3 dhulka ay dadkiina waa la badshay dhulka doorashadu ka dhacaydana waa la badiyey laakiin doorashada nuxurkeedu waxa waaye doorasho dadban waaye taana waxaan u malaynayaa madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland inaysan dood ka qabinin inay dadban noqoto kama qabaan meesha horta meelaha rajadu ku jirto meeshaasi waa ka mid waaye marka baarlamaanku horta inuu aamuso oo muxuu ahay mujtamaca iyo doodaba fagaarayaasha siyaasadda uusan imaan waaye markaasi uu fiirido oo markaasi sidii maryan ay sheegtay muxuu mataqaanaa si wada jir ah go'aan siyaasadeed loo gaaro madaxda maamul goboleedyada ee dhaliilsan wixii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb 3 waxa ay si gaara uga soo horjeedaan qodobo ay ka mid yihiin in guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan ay howlaha doorashada maamulaan dhinaca kalena waxay danaynayaan inay iyagu qayb ka noqdaan hanaanka wax loo soo xulayo arrintaas ma ku saxsan yihiin aan siiyo maryan cariif arrinta labaan u kala qaadaynaa mid waxa waaye guddiga doorashada ayay rabaan inay qaarkood waay kulligood maahan qaarkood rabaan in laga qaado awoodda midna waxa waaye inaan annagu wax ka soo xulnaan rabnaa guddiga doorashadu ma ahan guddi ay dowlad goboleed magacaawday ma ahan guddi ay dowlad madaxweyne magacaabay waa guddi ay magacaabeen dowladda soomaaliya soo magacaawday kadibna labada baarlamaan labada aqalba lama siiyey waa guddi ka kooban 9 qofood oo Soomaaliya waa guddi 9 qofood oo ka kooban yahay 9 maxay ka imaadeen maxay ahayd 4.5 ku salaysan waa guddi si sax oo xalaal ah loo suubiyay guddigan shaqadiisa waxa waaye inuu doorashadan wado doorashada natiijo ka keeno ayaa sababta loo keenay ay ahayd haddana 5 sano ay soo shaqeynayeen wax isku soo toosinayeen marka inta guddiga in laga dhigo guddi aan jirin oo kale to meel cad lagu tuuro anigu waxay ila tahay wax arintaas waxa igula gardaran dowlad goboleedyada igula gardaran taas waaye tan labaad waxa waaye guddigu waa hay'ad la siman ama isku position ay noqon karaan dalka xukuma dadka dalka xukuma ay kamid yihiin maxaa yeelay shaqaday hayaan waa shaqadii Soomaaliya ugu importantiisneed oo madax cusub oo sax lagu soo saari lahayd marka guddigii inay dhahaan waa la tuuraya oo anaga shaqo kuma lihin ismana naqaano waxaas waa ani waa ila khaldan tahay waxaan leeyahay dowlad goboleedyadu sharci in lagu socday rabaan oo ayaga bay dan u tahay ha ogolaadaano dadka kale sharciyadoodana ha ogolaadaano senator Xuseen maxay tahay aragtidaada ku aadan qodobada ay dhaliilsan yihiin madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland waad mahadsan tahay dabcan guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka waa guddi dastuuri ah qodob dastuura ayaa waajibaadkooda sheegaya sidoo kale sharcigii ayaga lagu dhisay ayaga mataqaana lagu aasaasay ayaa waajibaadkooda si fiican u sheegaya iyo shuruudahooda iyo guud ahaan shaqadooda sidoo kale sharciga doorashooyinka qaranka ee labada aqal ansixiyeen madaxweynaha uu saxiixay ayaa sheegaya sida ay u maamulayaan shaqada ay qabanayaan meeshaas lagu sheegaya haddii ay dhacdo marka sharcigii ayaga mataqaana ay ku shaqeynayeen oo kii lagu dhisay iyo kii doorashadoo ayaga mataqaana maamulkeeda ay lahaayeen wax ka duwan hadday yimaadaan su-aasha meesha ay ka taagan tahay waxa ay tahay aniga maanta oo xildhibaan ah senatara waan aqaanaa shaqada guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka uu qabanayo waa aqaanaa job descriptionkooda wuxuu ku qoran yahay mataqaana sharciga doorashooyinka qaranka iyo sharcigii lagu dhisay guddiga madax bannaan ee qaranka marka la yidhaahdo doorasho dadban bay maamulayaan maxay qabanayaan marka su-aashu waa taas halkaas waxaa la garanaya waxay maamulayeen xisbiya ayay maamulayeen waxay maamulayeen mataqaana voter registrationkii ama diiwaangelintii codbixintii dadweyne iyo xisbiyo ay u dhexeeyeen halkan ayay u dhexeeyaan yay mataqaana nidaamka sidee mataqaana maamulka uu noqonaya marka doorasho dadban guddigaas loo dhiibo dabcan si guud taas waa fahamka guud ee mataqaana shaqada loogu talagalay guddigaas hadda haddii la yidhaahdo heshiis cusub ayaa la galayaa oo doorasho aan ahayn tii ayaga loogu talagalay ayaa la qabanayaa dabcan meel laga soo geliya waa la heli karaa oo shaqadii mataqaana qayb waa laga siin karaa laakiin waxaa lagama maarmaana sidoo kale in dowlad goboleedyada
oo dabcan haddii la yidhi mataqaanaa tii doorashooyinka qaranka oo nidaamkeeda u degsanaa laga gudbay oo mid ayaga ay wax ka dhisaangaraynayaan ka nashqadaynayaan maanta la joogo oo heshiis siyaasadeed ah inay maamulkii qayb ka noqdaan waa lagama maarmaan marka wax u eg sidii kii oo heer federaalna guddi uu joogo heer dowlad goboleedna guddi uu joogo ayaa lagama maarmaan aan u arkaa guddiga madax bannaanna shaqo ahaan wuxuu qabanaya waa la yaqaanaa laakiin xeer jajab waa la soo gelin karaa ayagana shaqadii qayb waa laga siin karaa bay ila tahay haye shirwac mid muxuu ahay guddiga ku saabsan maryan ayaa la qabaa guddigu waa guddi dabcan sharci ku dhisan marka daaqadaa ka baxo xoogaa waxaad moodaa inaysan danaha la leeyahay u adeegaynin ayaad moodaa laakiin arrin kale ayaa ku xiran arrintan waxa weeyaan guddigu waxa ay go'aamiyaan meel looga dacwoodo ma leh maxkamaddii dastuuriga ahayd ma jirto waa gudihiina annagaa joogno oo muxuu ah waan ognahay guddiga maamul goboleedyada qaar way diidanayeen in xafiisya laga furo oo laga sii shaqeeyo oo muxuu ah dadka deegaanku ay bartaan guddigaani waxa uu qabanayo iyo siduu u qabanayo iyo taasina ma aysan dhicinin marka meesha u baahan in ay isla gartaan madaxdu waxa waaye guddiga kaliya maahina waxa weeyaan kalsooni darrada jirta ayaa waxay u baahan tahay in la buuxiyo markaan wax qaba haddii maxkamaddii dastuuriga ahayd oo qaab lagu kalsoon yahay loo dhiso oo sharciga waafaqsan loo dhiso ay meesha timaado waxaa dhici karta hawshaasi maaragta meeshaas doodaasi inay khafiif noqoto laakiin kalsooni darrada waxaa daweyn kara waxa weeyaan meesha la aadayo marka guddiga la saluugo shaqadiisa oo kaleeto marka waa xal waa loo heli karaa hanqaba halkaas dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiinan dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda oo aannu maanta ku eegayno waxyaabaha laga filan karo inay ka soo baxaan shirka magaalada muqdisho ay ku yeelanayaan madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada iyo guud ahaan arrimaha ku xeeran masiirka dalka wakhtigan kala guurka ah waxaana barnaamijka marti ku ah xildhibaan maryan cariif qaasim oo ka tirsan golaha shacabka senator xuseen sheekh maxamuud oo ah xogayaha guddiga dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo xubin firfircoon ka ah ururada bulshada rayidka maryan cariif haddii aan ku weydiiyo maxay yihiin asbaabaha ku gadaaman in ilaa wakhtigan aanu madaxweynuhu soo magacaabin ra-iisul wasaare mase loo baahan yahay in xilligan la helo ra-iisul wasaare qayb ka noqda go-aanka gaarista arrimaha masiiriga sida shirarkan oo kale arintan kaligay markaan ka fikiray horta waxaan leeyahay madaxweynuhu asagaa naga ogsoonoo dalkan madax u ah waxaa arintan dib uu uga dhigayna asaga keliya yaqaan cidla oga ma jirto laakiin dalku bacdamaa uu ku jiro xilli xasaasi ah doorasho la aadi doono isbedel la dhici doonaan dalka maxay ahayday shaqo badan iyo howl badan iyo isdaba socod badan iyo iskadabajiitan badan oo soo socdo inaan ra-iisul wasaare la magacaabin wax aan ku macnay kara ma jirto haddaan si kasta u fikiray oo iri maxaa loola jeedaa wax loola jeedo waa waag sidaas daraaddeed dowladda waxaan leeyahay oo madaxweynaha waxaan kula talinayaa ra-iisul wasaare ha magacaabo shaqadan wada weliba qofka uu soo xulaya si fiican ha uga fiirsado waa inuu noqdaa qof competent oo shaqadan si wanaagsan uga bixi kara haye xuseen maxay tahay aragtidaada ku aadan inaan weli ra-iisul wasaare lasoo magacaabin waxaan u malaynaa su-aashaas waxay ku fiicnayd madaxweynaha in la weydiiyo waa loo baahan yahay ra-iisul wasaare wakhtigan mataqaana kala guurka ah oo xilli oo siyaasadeed oo adag lagu jiro oo xukuumaddii mataqaana shaqooyinkeedii ugu muhiimsanaa amniga doorashada iyo mataqaana waxyaabihii ugu muhiimsanaa xilliga kala guurka qabta waa loo baahan yahay laakiin waxaa kaloo ayadana jirta qaacidadii ahayd maxayse ka nuugtaa maxayse ku nuugtaa ra-iisul wasaare 4 bilood wakhtiga ka dhiman yahay muxuu mataqaana hadda u imaanaya maxaa loo keenaya haddii hadda uuna gelinba hadda negotiationkii wadaxaajoodyada hadda socda uuna qayb ka noqonin ra-isul wasaarihii hore joogayna in uu qayb ka noqda loo diiday maanta ma garanayaba sabab uu hadda kadib loo keenan ma garanayo sababta loo haystana ma garanayo haddii 4 bilood hadda kadiba ra-iisul wasaaraha uu mataqaanaa imaanayaa loo dhiibayo sidii heshiis lasoo heshiiyey laleeyahay heshiiskan fuli ma garanayo aniga hadde booskii guddiga madax bannaan inuu buuxin doono ma garanayo laakiin shaqo kale oo hadda kadib uu ra-iisul wasaare cusub qaban doono iima muuqata aansiiyo shirwac waxa weeyaan waa loo baahan yahay inuu yimaado
ra-iisul wasaare haddii 2 beri 3 beri ay dhiman tahay xataa ra-iisul wasaare waa loo baahan yahay markee sababtu waxa waaye oo aan anigu saas u leeyahay ra-iisul wasaaruhu shaqo ama xukuumaddu shaqo ka duwan tan baarlamaanka iyo tan madaxweynahay leedahay hadda waxaad moodaa madaxweynihii iyo prime ministerkii shaqadiisii inuu ay mid tahay ayaad moodaa waxaa kaloo taas sii dheer kana foolxun xildhibaanadu iyo muxuu ahaayey labada aqalba ay xil ku leeyihiin weyn waxa waaye xukuumaddii kalsoonida weyday baa u shaqaynaysa sidii xukuumad kalsooni haysata marka arrintaasi waxa weeyaan waa xadgudub waaye arrintaasna waa in la joojiyaa ra-iisul wasaarahana waxa weeyaan waa loo baahan yahay waxa looga baahan yahay waxa waaye awooddan way qaybsanayd qayb dhan ayaa maqan oo si sharci darra aad moodaa in maaragta lagu maamulayo shaki weyna dadku ay ka qabaan ra-iisul wasaare ku-xigeenku waa xukuumaddii kalsoonida weyde ayuu ka mid yahay golaha xukuumadda ee shirayaahay waxa weeyaan kii kalsoonida waaye marka annaga haddaanu nahay bulshada waxaanu rabnaa inay meesha timaado xukuumad kalsooni haysata oo hawshii ka dhimanay tii hore sii wada ayaan dalbaynaa taasina waxa weeyaan waa arrin muhiima oo dowladda arrinta kale saddexaad oo loogu baahan yahay ra-iisul wasaaraha waxa waaye yacni maqnaanshihiisa ayaa laga yaabaa inay khilaafka wax ku darto hadda la wada hadlayo ayaa laga yaabaa inay khilaafka wax ku darto waayo tuhun ayaa dadkani waa dadkii 2 sano soo haystay tuhun badan baa jira waxaa loo qaadan karaa in madaxweynuhu laga rabo inuu sii wado hawsha oo kaleeto waxaa dhici karta in madaxweynuhu daahiyo ra-iisul wasaaraha oo mar dambe ra-iisul wasaaruhu xukuumaddiisa uu dhisto uu yidhaahdo lagama shaqayn karo doorasho heshiiskii siyaasadeedna markaasi uu noqdo haddana mid in dib looga wada hadlo marka waxyaabaha mugdiga gelinaya daacadnimada madaxdeenna heer walbaba ha ahaatee ayay ka mid tahay marka waa in si degdega madaxweynuhu xaqa u leeyahay inuu soo magacaabo laakiin waxa waaye wakhtigii dib loo dhigi lahaa ma aha muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray khilaafyo iyo wada shaqayn la'aan u dhaxaysa labada aqal ee baarlamanka gudoomiyaha aqalka sarena wuxuu horay u sheegay in madaxweynuhu uu ku xadgudbay dastuurka awooddii aqalka sarena u wareejiyey golaha shacabka arrintaas sidee lagu xallin karaa aan ku horeeyo Maryan Cariif awalba waa wada shaqayn jirnay aqalka sare iyo baarlamaanka qaranka oo wada shaqayn jireen waxaan anagu gudbino waa naga qaadan jireen waa soo akhrin jireen wixii laga bedelayo waa noo soo sheegi jireen wixii fiican oo isdhahan waxaan okay waayana waa gudbi jireen si fiican isula shaqayn jirnay anigu waxaan u maleynayaa in afgara waa dhacay ilaa ma suurtowda in la yiraahdo aqalka hoose kaliya shaqaynayo oo sharciga iyo wixii ogolaanayo iyo wixii la rabay iyo habkii la mari lahay kan sarana ma naqaano warkaas ma u maleynayaa inuu war suurtoobaya warkaas waxaan u maleynayaa in war oo kama ahaan ku dhacay oo yahay oo haddii dib loogu noqdo la raadi karo in aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba baarlamaanka iyo aqalka sare la kala yiraahdaa inay labaduba mas'uuliyadda shuruucda iyo arrimaha ka soo baxo dalka ka soo baxo waxaas inay qaabilsan yihiin kan hadduu ka baxo ka kale inuu aado waay kan kalena soo aqbalo waay hadday arkaan in anagu waxa aan suubinay ee khaladaad ku jiraan inay dib noogu soo celiyaan oo inay yiraahdaan waa meeshaas iyo meeshaas iyo meeshaas aan la khaldanay aan isla fiirino laakiin in la yiraahdo aqalkii saraa la baabi'iyey aniga ma oga xataa waxaas inay dhici karto haye xuseen sheekh maxamuud waa mahadsanta horta dabcan soomaaliya iyo guud ahaan siyaasadeeda ku aadan xeerdejinta waxay ahayd mid mataqaana cusub in uu 2 aqal uu yeesho teramkan ayaa mataqaana uu aqalka sare soo biiray arrinta hadda taagnayd oo berigii dhoweyd soo kacday waxay ku saabsanayd doorashada iyo nidaamkan kala guurka sida loo wajahayo oo aqalka sarena uu yidhi wax heshiis lagu yahay oo wadaxaajood laga galay ayaa hadda looga gudbi karaa golaha shacabkana dabcan ay mataqaana u arkeen inay liirka qaataan oo ay sida ay mataqaana ayaga ku hogaamiyaan doorashada waxaan u malaynaa marka arrinta oo ah in aqalkii sare booska laga saaray oo inay dowlad goboleedyadii xataa golaha shacabka matalayaan arrin waxaan la qabaa xildhibaan Maryan oo si aan la firin ku dhacday hadday dabcan madaxweynuhu saas aaminsan yahayna ma u malaynayo in mataqaana hadee 2 aqal oo dastuuriyo labada wada jira saas ma aaminsanaan kare in waan u cudur daarayna arrin siyaasadeedna waa loo fasiri karaayo dabcan inuu markaas madaxweynaha la dhacsanaa golaha shacabka sida ay wax u wadeen oo aqalka sare uu ka soo horjeeday waa loo fasiri karaa si kastay ahaataba 2 aqal waa isku qasban yihiin inta waqtiga ka dhiman inay wada shaqeeyaan oo danaha qaranka guud ay ka wada shaqeeyaan xeerdejinta ay ka wada shaqeeyaan haddana wada shaqaynta caadiga ahayd oo isu gudbinta xeerarka ma joogsanin oo way socotaa
arinta doorashada iyo sida loo wajahayo gaar ahaan guddigii mataqaanaa habraacyada soo dejiyey iyo kadib sidee loo wajahayaabaa laysku yara fahmi waayey ayadana hadda dabcan inay mataqaanaa af yeelatay baad moodaa oo dhinac loo wada aaday oo hogaamiyaashii mataqaanaa federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ka wada hadlayaan shaqada inta dhimanna si fiican inay ku socoto oo caqliga uu shaqeeyo baarlamaanka soo socdana si fiican looga sii baaraandego oo wakhtiga ugu horeeya ay fariistaanba ay samaystaan xeer hoosaad wada jir ah waana laga gudbi doonaa bay ila tahay shirwac sidee khilaafka labada aqal ka dhex oogan lagu xallin karaa waa in la heshiisiiyo madaxdooda laysu keeno gudiyadooda joogtada ah maaragta dad laga soo saaro ay wada hadlaan wadanku waqti adag buu marayaa marka dhinac walba laga fiiriyo dhinaca siyaasadda dhinaca amniga dhinaca bini'aadanimada marka la fiiriyo marka waajibkaas damaqaas oo waajibka ku ah muxuu ahay labada hoggaan ee muxuu ahay baarlamaanka Soomaaliyeed waa inay gartaan inay wada hadlaan oo ay sida madaxweynaha iyo madaxweynayaasha maamul goboleedku u wada hadlayaan iyaguna inay wada hadlaan waayo wada fariistaan intaan heshiiska siyaasadeed soo bixin ay iyagu heshiis noqdaan saasay aniga ila tahay ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese waqtigan adag ee kala guurka dalka loo samata bixin karaa oo ay u dhici kartaa doorasho wada ogol ah si qaab nabadeed xukunka loola kala wareego xalku horta waa inaan ducaysano ilaahu dadkayna quluubtooda rabbiga isu fur ilaahu wixii noo dan ah kulligood ku wada toosi taas horta number waaye waa koow laakiin madaxdu waa kala awood badan tahay waa kala weyn tahay waa kala maxay mug weyn tahay marka waxaa laga rabaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha la magacaabi doono ayaa la rabaa arrintan inay si fiican oo xal dalka u noqon karta oo aan lagu kala tegaynin oo lagu wada joogaayo oo doorasho lagu aadayo oo madaxda cusub lasoo magacaabayo oo laysku bedeli doono labadoodaa la rabaa inay si run ah oo waqti aan lagu dhuminayn ay uga shaqeeyaan laga rabaa waxaa ii soo haray baarlamaanada iyo annaga kooxdayna ama baarlamaan aan joogno ama aan aqal sare joogno kooxdaynana waxaa la rabaa inay dowladda gacan ku siiso madaxda gacan ku siiso lagu geesinimo geliyo tallaabooyin oo wadaninimo ku jirto khasaarada iyo waqti dhumiska yaraynaya annaga isnaceybkaynina isdiidkayna yaraynaya oo tallaabooyin positive waxa gaalada ay dhahan tallaabooyin wanaagsan inaan kulligayn qaadno laakiin madaxda dalka oo madaxweynaha number 1 u yahay ee noo horseedo haye senator xuseen xalku sidee kuula muuqdaa waa mahadsantahay dabcan xalka insha allah waa soo dhow yahay baan rajaynaynaa madaxdii federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada waa isla joogaan doorasho wakhtigeeda ku dhacda oo heshiis lagu yahay ayaa xalka u yahay laga qaybgeliyo dabcan ururada bulshada rayidka ah laga qaybgeliyo xisbiyada siyaasadda la keeno labada aqal si mataqaanaa hadhowdii ay u noqoto ansax u noqoto waqtiga inta ka dhiman in mataqaanaa jilbaha la isgashado si fiican looga baaraandego maxaa suuroobaya maxaan suuroobaynin maxaa mataqaanaa meeshii hore kor looga kici karaa oo la wanaajin karaa in la yidhaahdo la is ogolaado oo garbaha la isqabsado oo mataqaanaa madaxweyne farmaajo dabcan intaas ayaan in wakhtiga kala guurka ah uu dadkii isu keeno oo uu mataqaanaa gacmaha isu saaro doorasho dadkao dhan wada ogol yihiin wakhtigeeda ku dhacdana uu qabto insha allah shirwac haddii aad tihiin bulshada rayidka maxay tahay taladiinna xalka ku aadan taladayadu waa horena waan u sheegnay haddana dadka soomaaliyeed oo dhammaan ku dhawaaqaya waxa weeyaan in la wada hadlo go'aan siyaasadeed oo wadankan dhibaatada ka saaraya madaxda soomaalidana maaragtay sharaftooda kor u qaadaya muxuu ahay cid waliba ay dhaxal hadhoweytay ay ku faanto ay ka tegi karto in loo wada hadlo dalkana loo dhimriyo muxuu ahay wada hadalkaasina uusan noqonin mid la isaga takhalusayo ogta soomaalidu ma tartanto way iska takhalustaa tartanku wuxuu leeyahay waxyaaba badan oo maaragta wanaagsan ayuu leeyahay badeecadoo kaleeto matalan in lagu tartamo badeecad fiican inaad soo saarto marka waxaan sugaynaa yacni ummadda soomaaliyeed liidnimo waaye 4 sano walba marka ugu dambayda in la iska qabsado doorashadu ay ku dhammaato codgadasho iyo isjiijiid iyo dagaal iyo buuq waa ceeb waaye marka waxa lagu imaan karaa waxa waaye madaxdu inay sharaftooda ilaashadaan midda ummadda ay ilaaliyaan hay-adaha ay matalayaan
shaqeeyaan sharaftooda ay ilaaliyaan. wadankan waxa uu u baahan yahay way muuqataa. wuxuu u baahan yahay doorasho heshiis lagu yahay, nabad ku dhacda, madax cusub ama kuwii hore ay soo noqdaan si nidaama oo sharciyeysan ay ku noqdaan, oo aan mar walbaba bini'aadan aan nahay caalamku uusan naceebayn uusan dhihinin rajadii aan idinka qabnay waa dhammaatay. waayo waxaa dhacaya marka aad fiirido waad niyad jabaysaa. marka ummadda iyaan la niyad jabinin, hala wada hadlo, si bisraaxaha loo wada hadlo. waxa la isku haystaa wax laga heshiin kara waay. haddii aysan heshiin karin iyaguna dee dadka ha u yeertaan. dad badan oo Soomaaliyeed oo wanaag rabaa jira oo maaragtay heshiisiinta qayb ka qaadan kara. intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen xildhibaan Maryan Cariif Qaasim oo ka tirsan golaha shacabka, senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ah xogayaha guddiga dib u eegista dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka, iyo Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh. aad buu u mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo barnaamijka faaqidaada toddobaadka nooga soo diray magaalada muqdisho. markanna waa barnaamijkii amuuraha islaamka waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya xuseen barre aadan. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka. magaalada hargeysa waxaa habeenkii xalay ahaa lagu soo gabagabeeyey tartankii u horreeyey ee noociisa ahaa ee qur-aan akhriska. tartankan ayaa ka sokow xifdinta qur-aanka waxay ardaydu ku tartamaysay 10 qaab ama 10 qiraa'o ee loo akhriyo qur-aanka kariimka ah. tartankan ayaa waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Somaliland, sida uu faahfaahinayo aadan cabdilaahi cabdalle oo ah agaasimaha guud ee wasaaraddaas. tartan aad u culus buu ahaa in la kala saaro. wasaaraddu waxa ay soo casuumtay culimo waaweyn oo quraa ah oo caalami ah, runtii ka yimi Maraykanka. qaar ahaayeen dalashaani kasoo jeeda dalka Masar, laakiin Maraykanka ay ka yimaadeen. sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda islaamiga ee dalka Maraykanka Sheekh Waliid Al-Manisi iyo Sheekh Xasan Saalix. musaabaqadan waxay ka koobnayd arday oo ku tartamaysay 10 qiraa'o ee runtii aanu sheegnay. runtii tartan aad iyo aad u adag buu ahaa. ardayga ugu horeeya ilaa 3 arday baa guulaystay. ardayga ugu horeeya waxaa la guddoonsiiyey oo maxaan ku rahdaye aanu guddoonsiinay shahaado sharaf iyo maxaan ku rahdaye $3,000 Maraykanka ah. ardayga ku xigay $2,500. ardayga ku xigay saddexaad galayna $2,000 iyo shahaado sharaf runtii la guddoonsiiyey. waxa ka muhiimsan in ardayda wax la guddoonsiiyo in dhiirigelinta kale. madashu waxaa fadhiyey dad ku dhow 3,000 oo qof baa fadhiyey oo intaas runtii u duceynayay oo u hambalyeynayay. dareenkooda runtii aad iyo aad buu u sarreeyey. waxaanu wasaarad ahaan naga go-an in aanu xoojino, sii wadno sanadka musaabaqadan aanu qabanno. hadda waxaa iyadan qorshaha noogu jira musaabaqadan uu qabto ama loogu magac daray madaxweynaha Somaliland ee madaxweynuhu maalgeliyo in aanu ka dhigno heer gobol, islamarkaasina ay kasoo qayb galaan gobolkan ku leeyahay mantiqada geeska Africa. aanu ku casuuno Djibouti, meesha la yidhaahdo Ethiopia iyo dowladaha kale aanu ku casuunaanu doonaynaa. waxa uun hadafkayagu yahay unsaan hore kugu sheegay in aanu helno arday jecel qur-aanka ilaahi subxaana wataala, islamarkaasna bulshada bedeli karta oo u horseedi karta in bulshadu ay hogaamiyaan. qabanqaabiyayaasha tartankan qur-aan akhriska ee Hargeysa ayaa sheegay in ay ku rajo weyihiin in tartamada noocan oo kale ah ay kaalin ka geystaan sidii ardayda iyo dhallinyarada looga ilaalin lahaa xagjirnimada, haddii ay noqoto xagjirnimada dhinaca argagixisada iyo haddii ay noqoto in dhallinyaradu ay ku kacaan falalka dhaqan xumada ah sida isticmaalka mukhaadaraadka iyo wixii la mid ah. ardayga marka uu ama diinta barto inta badan waxa uu ku hagaagaa dariiqii laga doonayey ee saxda ahaa ee suubaaba ku hagaagaa. taasoo runtii annagana aanu dee doonaynaa. wax badanna way ka tari kartaa, waayo qof kastoo la dhiirigeliyo, loo sheego inuu wax wanaagsan samaynayo, la garab istaago, hadiyada la siiyo, loo muujiyo dareen naxariis leh, inta badan wuu hagaagaa. marka waxaan is leenahay waa qayb ka mid ah baraarujinta iyo maxaan kula barbaarinta ubadkeena ayaan oran karaa. intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. aad buu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkii umuuraha islaamka. balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Caashi Ibraahim Aadan.
dowladda maraykanka ayaa khamiistii cunaqabatayn saartay 4 howlwadeen oo xiriir la leh ruushka iyada oo ku eedeysay in ay isku dayayaan inay farageliyaan doorashada madaxweynaha maraykanka ee soo socota. saraakiisha cunaqabataynta la saaray ayaa waxaa ka mid ah Andriy Derkach oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Ukraine oo ku xiran sirdoonka ruushka iyo 3 kale oo ka howlgala ruushka oo ku xiran hay-adda cilmi baarista internetka ee ku taala magaalada Pittsburgh. cunaqabatayntan ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynaha maraykanka Donald Trump iyo qaar ka mid ah saraakiishiisa ugu sarreysa sirdoonka ay ku adkaysteen inay yihiin wakiilada Shiinaha ee aanay ahayn ruushka halista ugu weyn ee codbixinta dhacaysa November 3. dhinaca kalena ciidamada ruushka ayaa si isa soo taraysa u wajahaya diidmada dadka deegaanka ee waqooyi bari dalka Syria iyagoo isku dayaya in ay ballaariyaan joogitaankooda militari ee qaybta ay xasaradu ka taagan tahay siday sheegayaan ilo wareedyo iyo khubaro. toddobaadkii hore ayaa kolonyo militari oo ruush ah waxa ay tageen tuulo u dhow xadka Syria ee la wadaagta Turkiga halkaas oo sida la sheegay saraakiisha ruushka ay muujiyeen rabitaankooda ah inay fariisin militari ka samaystaan aagaasi. aad bay u mahadsantahay dhegaystayaal. Caashe Ibraahin Aadan oo warkii dunidaynala socodsiinaysa. idaacaddeenii galabnimo intaa ayay nooga dhan tahay. waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.